Webiga Shabeelle ee mara gobolka Shabeellaha Hoose ayaa fatahaad saameyn badan geysatay ka sameeyay degmada Afgoye iyo tuulooyinka hoos yimaada. Maamulka Shabeellaha Hoose ayaa horay gargaar iskugu jira marakaneecooyin iyo jawaano carro ah oo lagu celiyo webiga gaarsiiyay halka. Kulan looga hadlayay sidii hay'adaha ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose ay gargaar degdeg ah u gaarsiin lahaayeen deegaanada uu webiga ku fatahay, isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen guddiga gargaarka fatahaadda Koonfur Galbeed iyo wasiir ka tirsan maamulka ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu sheegay in fatahaadda webiga ay saameyn ku yeelatay dadka deegaanka. Waxay u baahan tahay si degdeg ah in loo garab istaago. Haddii kale waxa weeyaan wixii ay dheeraanayaan dadka ugu dhow ama garabta isla markii oo u dhowna masiibadaas haddaysan si degdeg u garab istaagin dadka kale oo ka dambeeyaan ayagana waxa ku dheeraanaya inay ka soo gaaraan. Hadda waxyaabo badan oo aan xidhayaan oo aan garab istaagna way jiraan, baahi fara badanna way jirtaa. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax, isla markaana xubin ka ah guddiga gargaarka fatahaadda webiga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa tilmaamay in maamulka Shabeellaha Hoose uu horay gargaar u gaarsiiyay deegaanada, laakiinse hadda ay ka sii dartay xaaladda. Horay annaga waxaan ka jawaabnay maamulka degmada iyo maamulka gobolka iyo shacab ahaan annagoo isku duuban in la xiro meelaha webigu uu ka fatahay, meelihii webigu uu jabsaday biyaha hawliga ku socdo darteeda inaan xirno biyo xireenno la sameeyo si biyaha aysan u soo gaarin xaafadaha iyo magaalooyinka. Waxaan gaarsiinay degmadaas ilaa iyo 30,000 oo jawaano ah. Wasiirada boostada, kalluumeysiga iyo wasiir ku-xigeenka gargaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wadajir ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in la caawiyo walaalahood ay fatahaadda go'doomisay. Waxaa loo balansanaa in laga hadlo dhibaatada ka dhacday oo fatahaadda webiga uu bixiyay webiga Afgoye, dhibaato badan oo saameeyay dad badan guryahooda ka bixiyay. Marka sidii loo gargaari lahaa xagga caafimaadka iyo xagga nolosha iyo maartay laga hortay la dhiban masiibada dambaysan u dhicin. Runtii hay'adaha qayb xoogooda ballanqaadyo badan sameeyeen. Inta kalena insha Allah 2 maalin kadib ayaa kulan muhiim u jiri doona oo runtii waxyaabaha iyo booheen sidii loo gaarsiin lahaa degmada. Halkan waxaan kula kulannay dhowr wasiir, gudoomiyaha gobolka, ku-xigeenadiisa, gudoomiyaha degmada iyo hay'ado 18 gaarayo. Waxaan dhamaantood u sheegnay ka wada hadalnay in Afgoye maanta hadal aan u baahnayn ay u baahan tahay in wax loo qabto. Maxamed Jubba, warbaahinta qaranka.